وايد سلام دمانتينا kusoo dhaw channelkayga magacaygu waa Ibrahim Adam waxaan idin wadaagi doonaa dhowr arimood oo muhiim ku ah oo lagu talinayo arinka koowaad waxa uu yahay habeenkii diyaarso wixii aad subaxdii qaadan lahayd markii aad tahay arday ama qof meel u shaqeeya subaxda hore markii aad soo kacdo subaxdaas waqtiga aad ayuu kugu yar yahay in aad quraac cunto in aad naftaada diyaar garayso waxa laga yaabaa in ay kugu qaadato 2 saac ama 1 saac iska dheh sidaas darteed waxa dareemaysaa cadaadis dhanka waqtiga ah culayskaas waxa jira hal wax oo hadii aad sameeyso ka fududeynaya waa wax fudud oo aad sameyn karto waa kaliya habeenkii diyaarso wixii aad subaxdaas qaadan lahayd dharka aad xiran lahayd waxaan wada ognahay bini aadamka ah waliba ka dhalinyaro ahaan waxaan jecelnahay dharka aan subaxda xiran lahayn in aan aad uga fakarno sidaas awgeed waqtigii subaxda ku bixi lahaa doorashada kaliya dhar habeenkii inta aadan seexan ka hor waqti ku bixi oo dooro wixii aad subaxdii qaadan lahayd sidoo kale hadii uu feero ka rabo isla habeenkaas qabo mar hadii aad intaas kaliya habeenkii aad iska qabato halkii aad subaxdii waqti ku bixin lahayd subaxdaas waxaad u baahnaan doontaa kaliya qubayso quraacun bax waa intaas oo kaliya waqti badan ayaa ku safe garoobi doono oo ku faraxsan aaditaanka jaamacadaada iyo shaqadaada ayaad guriga ka bixi doontaa arinka labaad waxa uu yahay put your important things in your shoes at night hadii aad tahay arday waxaad leedahay ID card ama waxa laga yaabaa in aad exam ama imtixaan uu ku socdo oo lagaaga baahan yahay waxa loo yaqaano pass card si aad imtixaanka uga qayb gasho sidoo kale hadii aad meel ka shaqeyso ama xafiis aad furihiisa hayso si aad adigu u furto subaxda hore ama card shaqaba waxa laga yaabaa in aad ilowsho badan tahay sida caadiga ah waxyaalaha sidaas oo kala muhiimka u ah dadka guriga ay ku hilmaamaan inta badan haddaba si aad uga hortagto arinkaasi waxa sameyn kartaa markii aad habeenkii diyaar garoobayso furaha ama ID cardka iyo wax kasta oo aad hilmaami karto oo yar waxaad ku dhaxridanaysaa kabaha aad subaxdaas qaadanayso oo aad habeenkii qorshaysay sababtuna waxa ay tahay kabuhu waa waxa ugu dambeeyo ee aad xiranayso markii aad guriga ka bixiso sidaasna waxa kugu suurtagelayso in aadan hilmaamin shaygii muhiimka ku ahaa ileen kabaha ayuuba kugu sii jira arinka saddexaad ee aan kula wadaagaya ayaa ah qof hadii uu meel kugu balamiyo waxa laga yaabaa qof shaqo ay idinka dhaxayso ama qof aad meel isku raacaysaan in uu meel kugu balamiyo si aad meeshaasi ugu sii sugto wuxuu doono ha ahaado saaxiibka ama shaqo wadaag anybody uu yahay waxa lagu talinayaa in aadan exactly isla meeshii aadan istaagin si aad qofkii ugu sugto sababo la xiriiro for your own safety waayo qofkani waa bani aadam adigu kalsooni 100% ah kuma qabi kartid mar walba waxaad aaminsanaataa don't trust anybody qof aad aaminsan tahay ayaa ku dhibaateen kara ama mission ku gelin kara marka si aad arinkaasi uga fogaato meesha uu qofka kugu balamiyay meel u dhow oo aad ka arki karto meesha balanta ayaad iska fadhiisanaysaa ama aad ku sugaysaa hadhow qofku markuu yimaado markuu ku dhaho ku aawi adiguna waan jooga ayaad leedahay sidaas ayaadna ugu tagaysaa waa intaas oo kaliya for your own safety for your own good waa in aadan qofna aaminin don't trust anybody qodobka afaraadna waxaa lagu talinayaa in aad channelkan aad ku soo biirto oo subscribe aad saarto sidoo kale aad muuqaalkan aad like garayso hadii aad awoodidna aad asxaabtaada la sii wadaagto sababo la xiriiro in aad caawiso milkiilaha channelka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan qodobka shanaad oo ah kan ugu dambeeya wuxuu ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma